أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أرضيدا Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda fasalka form 4 insha Allah waxaan caawa qaadanaynaa muraajacada ama xalinta imtixaankii la galay 2024 maadada physics ayaan sharxi doonaa insha Allah. hore waxaan usoo geliyay clip qaybta maadada xisaabta. caawana waxaan xalin doonaa insha Allah su'aalaha ugu horeeya qayb kamid ayaan qaadan doonaa haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaro. qaybta koowaadna waa 40 marks ku qoran qaybtan koowaad oo goobagelinta ah waa 40 su'aal oo goobagelin ah. su-aasha koowaad waxaa ku qoran ama su-aasha koowaad waxay tahay the branch of physics laamaha physicska that deals with kaasoo ka hadla mas wax ka sheega with the motion dhaqaaqa and the force iyo xooga iskolet waxaa loo yaqaanaa. su-aasha marka haddii dib loo fiiriyo waxay ka tarjumaysaa mise waxay tahay physicska ka hadla dhaqaaqa iyo xooga maxaa loo yaqaanaa optics miya, mechanics miya, atomic miya, mise waa electromagnetism. saa darteed jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka B oo mechanics ayaa xooga iyo sidoo kale forciga iyo motionka wax ka sheega. su-aasha labaad waxay noqonaysaa the magnetic field lines originate from. saa darteed marka magnetic fieldiga wuxuu ka imaadaa asal ahaantiisa waxaa lagu weydiiyey east pole, south pole, north pole iyo west pole. magnetic fieldiga wuxuu kasoo bilowdaa asal ahaantiisa north pole. jawaabtan waxay noqonaysaa xarafka C. su-aasha labaad ama saddexaad waxaan la weydiiyey in which of the following diagrams diagramada soo socda showing lagu muujiyey xarafka P iyo Q inay u xiran yihiin qaab serious ah marka loo fiiriyo qaabka loo xiro korontada with each other mathematically and parallel with waxayna barbara markaas ay leeyihiin with r or distance ah. marka jawaabta saddexdan afartan sawir midkee B iyo Q marka loo fiiriyo serious u xiran B waa kan Q waa kan danabkan hadda xiran oo kale serious miya oo artana markaasi parallel miya la tahay. qaybtan labaad B iyo sidoo kale iyo Q labadan ayadana sida day field sidoo kale waxay u xiran yihiin qaab serious ah artana parallel miya la tahay. su-aashan kale oo qaybta kalena waxay tahay B iyo Q labadan qayb parallel miya may u xiran tahay qaab serious may u xiran tahay artana sidoo kale ma waxay la tahay resistance-ga ma waxay la tahay parallel. marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa xarafka A ayaa sax ah oo qaybta markaan fiirino B iyo Q waxay u xiran yihiin qaab serious u xiran yihiin artana waxay la tahay parallel ay labadooda noqonaysaa. marka jawaabtu waa xarafka A ay noqonaysaa. su-aasha afraad haddii aan u gudbo su-aasha afraad waxaa lagu weydiiyey the period of simple harmonic motion depends on. periodka ama kalka socodka walhashada fudud waxay ku xiran tahay A length of the screen, mass of spring, acceleration due to gravity, mass of vibrating body. markaan fiirno marka shaygan walhashada uu sameynayo ama dhaqaaq uu sameynayo pendulum kalkiis marka la fiiriyo waxaa inta badan loo tixraacaa waxay tahay mass of vibrating oo ah xarafka D. culayska shayga gariirka sameynayo ayaa loo tixraacaa. saa darteed jawaabta waxay noqonaysaa xarafka D. su-aasha afraad D ayaa sax ah oo waa mass of vibrating. su-aashan shanaadna waxay tahay the figure below sawirkan hoose shows wuxuu ku tusinayaa the journey made by a car safar uu sameeyey baabuur. saa darteed at which interval of velocity will be constant. interval velocity-ga marka la fiiriyo ama xawaaraha marka la fiiriyo midkee constant noqonayo. xarfaha meeshan lagu siiyey waxaa u dhahay badweyn O iyo K, badweyn L iyo M, badweyn K iyo L, badweyn O iyo M. inta waxaa haystaa O, inta waa K, inta waa L, intana waa M. marka xawaaraha midkee oo marka la fiiriyo qaabka intervalka ku soconayo velocity-ga midkee markaasi constant ah. constant-ga marka wuxuu noqon doonaa waa K iyo M waa labadan qayb waa ayaa constant ah. marka K iyo M ayaa jawaab saxda noqonaysaa. K M na waxay ku qoran tahay xarafka waxaan rabaa K iyo L waxay ku qoran tahay xarafka C. marka su-aashan shanaad C ayaa sax ah oo marka lagu weydiiyo qaybta in constant-ga velocity-ga uu sameynayo gaarigaasi.
su-aasha lixaad waxaa ku qoran which quantity measures the following the figures below. Which quantity measures the figure below. sawirkan hoose maxaa lagu cabiraa? quantity lagu cabiro maxay tahay? ma waxaa lagu cabiraa pressure, ma waxaa lagu cabiraa energy, ma waxaa lagu cabiraa volume, ama waxaa lagu cabiraa temperature. saa darteed sawirkan markaan fiirino waxaa loo adeegsadaa in lagu cabiro temperature-ka. jawaabtana waa xarafka D ayay noqonaysaa. su-aasha toddobaad waxaa lagu weydiiyey the device aaladda use loo isticmaalo for measure in lagu cabiro potential difference faraqeedka voltage-ka uu leeyahay is known as waxaa loo yaqaanaa ammeter, voltmeter, ohmmeter iyo galvanometer. intaa marka midkee sax noqonayo? jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka B oo waa voltmeter ayaa lagu cabiraa marka la raadinayo potential difference-ga voltage-ka uu leeyahay oo xarafka toddobaad ah. jawaabta waa B ay noqonaysaa. su-aasha sideedaad haddii aan u gudbo, su-aasha sideed waxaa lagu weydiiyey according to the wave properties which property shows the figure below. adoo u tixraacayo ama u fiirinayo properties of waves astaamaha hirarka ay lahaayeen. which property astaantee shows ayaa ku tusinaysa the figure below. sawirka qaybtan waxaa yaala candle waa shumac ayaa la shiday. halkan waxaa yaala kaartooman oo ah cardboardskan halkan way ka duleelaan, halkaas way duleeshaa oo kale way furan tahay, waa open waaye. qaybtan waa holiskii furnaa, intana waa ice. marka iftiinka meeshaan laga shiday halkan uu soo dhexmaray, iftiinkan meesha soo dhexmaray marka halkan uu kasoo gudbay oo kasoo baxay. saa darteed marka propertieskan ma waxaa la dhihi karaa reflection, ma waxaa la dhihi karaa refraction, waa diffraction ama rectilinear propagation. haddii aan fiirno marka refractionka waa noqodka ilayska, refractionkuna waa qalloocsanka ilayska, diffraction-kana waa gadaakabaahida ilayska uu sameynayo, rectilinearna waxaa la dhihi karaa waa ilayska baahitaanka ilayska toosan. marka haddii aan fiirno qaybtan astaamahani, jawaabta saxda waa xarafka D oo qaabkan waxaa loo yaqaanaa ama ay tahay rectilinear propagation oo ah toostaanka ilayska ku toosay ama ku baahayo qaab toosan loo yaqaanaa. marka waa baahida ilayska qaabka toosan ku baahayo. su-aasha sagaalaad waxaa lagu weydiiyey two teams from Somali public schools. laba koox oo ka kala socda iskuulada publica ah ee nidaamiga ah ee Soomaaliya ku yaal oo kale are playing waxay ciyaarayaan at the catware, waxay ciyaarayaan xiriir jiid. find soo saar their resultant force, awoodooda soo saar by using adoo isticmaalayo in the figure below the host. marka qaybtan xoogay isticmaalayaan ama xoogooda wuxuu leeyahay 300. xoogay isticmaalayaan waa 300 oo isleeyahay xoogooda. inta waa 300, xoogooda waa isleeyahay newtonkooda. inta waa 300 ku qoran waa newton, inta 300 newton waaye. marka xoogooda isku mid way isu dhigmaan. maadaama xoogooda isku dhigmaan labadan koox ama labadan qayb laba iskuul kala socdo public ah, ma jawaabtooda ma 600 newton miya, 300 newton miya, 0 newton miya, ma 0.5 newton. marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa way iskansalayaan 300 newton 300 newton. jawaabta waxay ka soo bixaysaa ama waxay tahay xarafka C oo ah 0 newton ayaa jawaabta saxda noqonaysaa. su-aasha tobanaad haddii aan u gudbo, which method habkee of heat transfer occurs in a vacuum. habkee ayuu ka dhici karaa gudbinta tamarta kulka ah occurs in a vacuum markaas uu ku dhici karo meel maran mise meel eber ah. ma waxaa la adeegsanayaa conduction, mar labaad soo laabtay conduction, C radiation ama induction. meeshan oo kale waxaa laga rabaa inay ahaato convection, laakiin qaybta waxaa ka taab writing ayaa qaladka ah. intana waxaa laga rabaa inay noqoto B. marka labadan qaybood waa isku mid. hadda qaybta B iyo qaybta C waa isku qoraal waaye. labada midka ay arto kooban gasho marka. hadda laakiin waxaa noo fudud inaan kooban gasho eeda waxaa ku qoran conduction, intana waxaa ku qoran conduction. marka labadan jawaab waa isku qoraal waaye, isku hab waaye. tab writing waaye qayb dhinaca qoraalka ayaa qalad ka soo galay, tab writing waaye. marka inta ay jawaab sax noqonaysaa oo waa conduction ayaa loo yaqaan qaybtaasi.